wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa ka qayb galay shir looga hadlayo horumarinta iyo hagaajinta isgaarsiinta dalka Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shirkan oo socon doona muddo 2 cisho ayaa waxa ka qayb galay madaxda shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya, madax ka socotay Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa warbaahinta u sheegay in shirkan uu daba socdo shir horey loogu qabtay magaalada Nairobi, isla markaana looga hadlayo qaabka ugu habboon ee loo horumarin karo isgaarsiinta dalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in Bangiga Adduunka iyo kan Horumarinta Afrika ay shirkan soo qaban qaabiyeen, isla markaana ay gacan ka siinayaan dowladda federaalka Soomaaliya hagaajinta isgaarsiinta dalka. Shirkan waa shirkii labaad ee World Bank iyo Africa Development Bank ay u qabanayaan dowladda Soomaaliyeed iyo qaybta wasaaradda boostada isgaarsiinta. muhiimadda weyn waxay tahay sidoo labada bangi ay marlabaad engagement uga sameyn lahaayeen dowladda Soomaaliya weliba dhinaca ICT sector-ka. Marka shirka koowaad waxaa ka soo baxay qodobo waaweyn oo wada xasuusato afar protocol looga hadlay oo kamid ah inay kaalmeyn doonaan qaybta ICT sector-ka Soomaaliya. Shirka uu daba socda marka shirkan oo wixii ka soo baxay shirka ayaan rabnaa inaan ogaano iyo waxaan qabsoomin sababta uu qabsoomi waayeen iyo qaybta labaad waxa uu rabo bangiga World Bank iyo World Africa Development Bank inay ku taraan dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed. Marka anaka shaqada noo taal waxa weeye inaan eegno proposals ama afkaarta keeneen oo ku tijaabin inay u qalmaan ama lamideen kuwa anaka wadano hadeen lamid ahayn marka isku mid laga dhigo marka si loo hirgeliyo barnaamijyada labada bangi ay rabaan waddanka qabtaan. marka muhiimadu waa horta intaas weey. Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim ayaa sharaxaya waxyaabaha ay ka faa'iido karaan shacabka Soomaaliyeed shirkan markuu dhamaado. marka qofka muwaadinka ee Soomaaliya maxaa doona ugu jira shirkan la qabanayo waxa ugu jira waxa weeye waxaan rabnaa in isgaarsiinta Soomaaliya ay noqoto mid sharci ku dhisan. sanado badan oo soo dhaafay shirkadaha isgaarsiintu way iska shaqaysan jireen wax rabaan sameyn jireen wax fiican way qabteen oo uga celinayna laakiin marar badan waan sheegay aniga waqtiga waxa la soo gaaray isgaarsiintu loo baahnaa inay la shaqeyso dowladda oo shuruuc u hoggaansato tiiba marka aad looga hadlayo oo rabaa in la isfahamsiiyo ayadoo si macquul ah dadka u fahmaan. marka qofka muwaadinka Soomaaliya wuxuu ka faa'iidi doonaa shirarkan ugu dambeyntii in misan qiimaha shirkadaha isgaarsiinta ay ka qaadaan sida ka soo laadaan inuu hoos u dhici doono in quality-gu kor ku dhici doono in qolyo kale isticmaalo waxyaalaha simboxes oo aan shuruucba ku jirin la joojin doono la qaban doono in taawaradan badan ee waddanka ka wada jira ay yaraan doonaan oo dowladda ay ku kaalmeyn doonto in taawaradii la manage gareeyo in qalab ka yimaado waddanka يعني أقول وحية كواليتي سان أقول إنه عفمات كدرينيا إنه يعني وحترين إن لهابيو وليرادو تايب بدو واحد أنا سمايو مركا وجدوين كسرنا يا كوجرا مركا ودنبينتي أنا شغال إيطاليا وحاول إن قفك مواد كصومالية استعمال إسقارسينته وهلو وحول عتو بحي. محمد حسين محمد تي في عالمي يونيفرسال مقالة نيروبي.